بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضوضيال ملك ساجوكتان iyo si walbaadna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga oo toddobaadkiiba mar qura aad ka daawataan muuqaal baahiyaha TV-ga SDN TV ee magaalada Muqdisho. barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa suuqa Faras oo kamid ah suuqyada online-ka wax lagu kala iibiyo ka oo ku yaal magaalada Muqdisho. suuqa Faras ayaa ka kooban qaybo kala duwan kuwa oo macaamiisha loogu adeego ayagoo guryahooda jooga. barnaamijka inta hooda ka baxayo anigoo ah Mustafa Cabdi Gaabo Mustafa Karaama ayaa idin la socodsiinaya waana mar kale iyo barnaamijkii ganacsiga. gudoomiyaha maamulka suuqa Faras ayaynu waraysi kala duwan ka qaadnay. su'aasheena ugu horeysa waxay tahay goormee la aasaasay suuqa Faras? suuqa Faras waa suuq online ah oo la aasaasay sanadkan bilowgiisii bishii Janaayo 2020. fikradiisu muddo soo taagneed laakiin waqtigaas ayaa asaaskiisa koowaad la sameeyay. haddana waa sanad jirsaday oo sanadkii ayaa hadda dhamaad waa bishan December dhamaadka ama sanadka cusub 2021 wuxuu jiraa hal sano. maxaa kamid ah shaqooyinka kala duwan oo suuqa Faras u qabto dadka? suuqa daboolaa baahiyaha macaamiisha iyo ganacsatada. waxaan istusnaa dadka baahiyaha qaba oo u baahan adeegyo ama badeecado iyo dadka badeecadahaas iska leh oo alaabta keensaday ama ganacsatada ah ayaan barnaamij u sameynay appkaasina isku arkaan kadibna meeshaas wax ku kala iibsadaan. shaqooyinkeena marka waxa waaye inaan istusno dadkaas isu baahan ayaan shaqadeena waytaa. maxaa kamid ah shuruudaha laga rabo qofka inuu ku soo biiro suuqa Faras? waa maasan tahay mudane Mustafa. waxa ugu muhiimsan qofka ganacsigiisu inuu leeyahay shati oo qof diiwaan gashan oo ganacsigiisa u diiwaan gashan yahay uu yahay badeecadiisina mar walba available ay tahay la heli karo. intaas ay shuruudo waa kadibna waxaan galeynaa heshiis labada dhinac ay ku wada qanci karaan kaasana ku wada shaqeynayna hadii aan leedmo. haddii macaamiil idinka soo dalbado adeeg dukaaman kala duwan aad leedihiin sidee ku ogaa kartaa dukaanka adeegaasi laga soo dalbaday? barnaamijka wuxuu u samaysan yahay horta appka qofka markuu arko badeecadii wuu soo dalbadaa. qofka badeecadaas kalena fariina u dhacda ama ganacsigaas fariina u dhacda sheegayso badeecada noocaasa ama qalabka noocaasa adeega noocaasa in loo baahan yahay. fariintaas ayuuna ku ogaadaa in maanta badeecadiisii ay iib tahay oo la iibinayo. fariintaas u dhacda markii uu haayana wuu accept gareeyaa kadibna waa loo delivery gareeyaa ama waa loo qaadaa qofkii alaabtaas soo dalbaday. mida suuqa Faras ay taalo laba computer isku mid ah
sidee uu ku ogaa karaa qofkan computerka iskale in asiga laga soo dalbaday ama in midka kale laga soo dalbaday inta badan horta wixii oo computer nooc gaar ah qofkii haysta tusaale ahaan HP qofkii haysta asaga bas aan horta u xareynaa haddii aan la helin qaab kale oo looga duwo qofka kale oo tusaale ahaan haddii uu ka raqaysan yahay oo kaleeto qiimaha ay kala duwan yihiin macnaha featureska ay kala duwan yihiin waxyaalaha lagu kala duwo waa featureska qiimaha iyo wixii lamida marka sidaasaan kala socnaa labada badeecada keena ama labada ganacsade ee suuqa soo wada galay isku wax gadaayo waa inay features kala duwan yihiin waa inay qiimaha kala duwan yihiin meeshaasaa marka lagu kala dalbada lagu kala qaybiya ama lagu kala soocaa mararka qaar waxaa dalka ka dhaca inuu internetkii ka go-o maadaama online wax ku iibisaan sidee maxaa ku xalin lahaydeen arrimahaas waa sax adeegan wuxuu ku shaqeeyaa aaladda online-ka ah wuxuuna yahay baahiyaha badanaa ku taagan internetka ama netka waddankeenu awal xoogaa culays badan wuxuu ku qabay netka inuu googo-o waxaan rajaynaynaa baahiyahaas inay shirkadaha waddanka joogo isgaarsiinta inay naga dabooli doonaan aysan dhici doonin inuu internetku si sahal ku go-o waxaan ognahay in xarka badan sidaan rajaynayno kala duwan waddanka la keenay marka baahida internetka inaan walwal arrintaas ka qabin aan rajaynaynaa hadda ka bacdi macaamilkii idinka soo dalbada alaabta inay gaareen in kale sidee ku ogaa kartaan barnaamijka abka wuxuu leeyahay qofka marka deliveryga uu qaadayo ama wiilka alaabta qaadaya markuu meesha tago qofka macaamilka fariina u dhacaysa oo dhehaysa alaabtii oo lagu soo wadaa sidoo kale teamka oo hawshaas iskale oo qaybta saliska ama customer care-ka wicitaan joogta ayay waxay ku hayaan qofkii badeecadan ama adeegan soo dalbaday meesha loo soo marayo iyo in loo soo dhow yahay kadibna waxaa toos u wada xiriira wiilka alaabta wada ama qofka alaabta wada iyo qofka macaamilka alaabta soo dalbaday sidaas ayna isku helaan alaabtiina loogu wareejiyaa qofka markii alaabtii loogu wareejina orderkaas ama dalabkaas waa la complete gareeyaa meeshaas ku dhamaadaa haddii uu idinka soo dalbado shay aana waddanka aalin qof macaamiil idin ah bannaanka ma uga keentaan waa sax qorshayaasha waqtiga dhow waxaan dabanahay haddii aan leedmo inaan bannaanka ku saabsan aan ka jawaabno oo dadka macaamiisha aan soo gaarsiino wixii dalabaadka bannaanka ka dalbadaan laakiin hadda dalabaadka bannaanka kama jawaabno oo inaan hadda heli karin waxa qofka uu soo dalbanayana waa wax suuqana ku jira oo hore loo geliyey qiimayaashooda ay cad yihiin waqti uu heli karo yacdi waa marka laakiin kuwa bannaanka waxaan rajaynaynaa mar dhow in ayagana aan mustaqbalka inaan furno oo qofka uu waxaas bannaanka dalban karo maxaad ku kala duwan tihiin qofka dukaanka toos u tegaya iyo idinka qofka online wax idinkaga iibsanaya maxay ku kala duwan yihiin horta bulshadeenu waa bulsho online-ka wax ku gadan jirtay maaha barasho iyo juhdi iyo in la baray u baahan tahay laakiin sida saxda waxaa waaye waqtiga oo dhumaaya qofkii oo mataqaanaa waqti ka dhumaayo qofkii oo mataqaanaa waqti iyo lacag iyo mataqaanaa baabuur raac iyo howlahaas oo dhan jam iyo waxaas dhan ku jira markuu qofka u barto online-ka iyo wixii uu dalbaday wixii uu saxda inay yihiin waxa uu aad u jeclaan doonaa in online-ka loogu shaqeeyo marka arrintaas waxaan rajaynaynaa barasho kadib inay dadku ugu hori doonaan inay online-ka wax ku gataan waa sax COVID-19 adduunka dhan ayuu saameyn ku yeeshay Soomaaliyana waxay kamid ahayd adduunka kamid ah saameynta uu ku yeeshay marka waqtiyadii uu jiray COVID-19ka caadiyan dadku ay soo dalban jireen dalabaadkooda ay guryaha ay ku xirnaayeen ama iskuulaadkii iyo wixii jaamacadii wixii la hakiyay way soo dalban jireen waana loo shaqeyn jiray meeshada lagu geyn jiray adeegyadooda dhan maxaa idinka qofka marka ugu geysaan hadduu wax soo dalbado maxaa idin yaala oo agab idin fududeeya inuu qofkii adeegii soo dalbada ugu geysaan qofka markuu wax soo dalbado waxaan leenahay gaadiid kala duwan waxaan leenahay mootooyin oo laba lugaaleeya oo badanaa jaamka iyo cariiriga iyo meelaha xiran iyo ka bixi kara sidoo kale waxaan leenahay wixii intaas ka weyn haddii uu mootada ay qaadi weyso gaadiid baabuur aan leenahay baabuurtaasaa loogu adeegaa oo dadkaas macaamiilka wixis loogu geeya waa sax aniga waxaan is leenahay suuqeenna wuxuu uga duwan yahay suuqyada kale xagga baaxadda waa suuq ka weyn suuqyada kale oo waxaa ku jira agabyo ama stores ilaa iyo 500 store gaaraya
sidoo kale xagga waqtiga ama degdegsiimada waxaa ka howlgala meeshan gaadiid tiro badan oo ah gawaari iyo ha ahaato mootooyin marka waxaan isleenahay dhinaca degdegsiimada geesmada alaabta iyo waqtiga ilaalinta waqtiga sidoo kale waxaan isleenahay kalsoonida oo qofka macmiilka uu nagu qabo ayadana intaas markii la isku daro waxaan isleenahay waa waxyaalaha aan uga fiicannahay ama aan uga badino suuqyada online-ka hadda waddanka jira sida caadiyana xafiisyada online suuqa online-ka marka laga hadlayo inuu dukaamo tiro badan iyo waxyaalo uu furo ma aha just waxaan leenahay xafiiskan hadda aan deganahay oo qaybaha suuqa uu degan yahay qaybtiisa marketingka qaybtiisa saleska qaybta iibka ama ganacsiga qaybta mediaha iyo hawlihiisa wax la xiriira qaybteena financega iyo maaliyadda qaybta maamulka intaba waxay degan yihiin xafiiskan laakiin magaalada dhammaan 17 degmo ee magaalada waa ka howlgalnaa waana ka shaqeynaa waa ayna tagaan mataqaanaa gaadiidkeena waa tagaa soo badeeco iyo adeeg u qabanaya qof macmiil wax soo dalbaday sidoo kale waxaa bulshada Soomaaliyeed sharaxaad kala duwan siiyay qaababka uu shaqeeyo suuqa Faras gudoomiye ku-xigeenka suuqa Faras Mr. Cabdi Samad waa kan asagoo ka hadlaya bismillaahirrahmaanirrahiim aniga oo ah Cabdi Samad Ali Cabdi ahna maamulka ku-xigeenka shirkadda Faras waxaan rabaa macaamiisha Soomaaliyeed inaan la wadaago suuqan Faras shaqooyinka uu qabto iyo macaamiisheena sidii ugu faa'iidi karaan iyo dadka badeecadaha haysta sidii ugu faa'iidi karaan suuqa Faras waa suuq online ah oo ku cusub nidaamka ganacsiga Soomaaliya on hore aan ugu shaqeyn jirin systemka hadda uu ku shaqeeyo kaleete systemkan wuxuu ka qabtiri karaa macaamiisheena ayagoo gurigooda jooga ama goobtooda ganacsiga jooga in ay soo dalban karaan adeegii u baahan yihiin waliba meelo kala duwan inay ka soo dalban karaan haddii ay u baahan yihiin qudaar haddii u baahan yihiin oo kaleete haddii u baahan yihiin electronic ama mobile ama computer haddii ay u baahan yihiin cunto karsan oo maqaayadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sidoo kaleete haddii u baahan yihiin dhar marka suuqan wuxuu kulmiyay wax alla wixii aad ugu baahan tahay inaad ka soo dalban karto muddo hal saacne lagu keeni karo adeegyadaada kala duwan hal saac ilaa 45 daqiiqo sidoo kaleete waxaan u haynaa supplierska badeecadaha haysto adiga oo arday ah adiga oo meel kale ka shaqeynayo ayaa waxaad jaanis u haysataa maanta inaad badeecada u baahan tahay inaad keensato si suuqa aan kugu gelino badeecadaada oo aan kugu iibino macaamiil badan aan kugu raadino waxaa suurtagal ah dad badan oo maanta badeeco haysto inaysan haysanin meeshii ay badeecadooda ku soo bandhigi lahaayeen ha ahaato suuq ama ha ahaato dukaan waxaan u haynaa jaaniskaas inay systemkan soo gashan karaan inay isticmaali karaan badeecadooda ay ku gudbisan karaan sidoo kale annaga hadda waxaan isticmaalno waa system customerkeena mar alla markuu noo baahdo inuu wax naga iibsado halkuu nagala soo xiriiri karaa wuxuu nagala soo xiriiri karaa nambarada gaaban oo 432 ama short code-keena 432 ama appka ayuu wuxuu kala soo degi karaa Faras online ayuu Play Store-ka ama App Store-ka kala soo degi karaa kadibna magaciisu lambarkiisu gelina magaciisu ku register gareysana suuqa weynihii ayuu soo dhixgalaa wax alla wixii uu baahdo halkaas ayuu ka dalban karaa waxa ognahay adduunka waxa hadaareeyay waa COVID-19 oo problems badan ku hayo anaga waxaan isleenahay ilaahay nooma keeno xoogaa waa ka bad qabnaa laakiin haddii uu imaado dadku alternative kale haystaan maxay tahay waa inay suuqan ka soo adeegan karaan ayagoo guryahooda joogo loogu geyn karo si loo badbaadiyo noloshooda iyo ganacsigoodaba waxaan isleeyahay dadka qaar haddii online ay maqlaan waxaa laga yaabaa inuu culeys qaali iyo waxyaalo badan uu ka qabsado annaga suuqa qiimaha shayga uu ka joogo qiimo ka hooseeya ayaan systemka u noogu jiraa sidoo kale waxaan ka qaadnaa kaliya magaalada Muqdisho ilaa iyo daafaheeda qofka wax alla wuxuu soo dalbado $1 delivery kaliya ayaan ka qaadnaa meel alla meeshuu joogana waa u geynaa badeecada oo soo dalbadana waa u geenaynaa marka waxaan isleeyahay waa jaanis ganacsatada Soomaaliyeed ay heleen oo badeecadooda ay ku soo bandhigin karaan sidoo kale customer-kana jaanis ay heleen
wax alla waxay rabaan ama adoo gurigaada jooga wax soo dalba ama xafiiskaada adigoo joogo waxaan kugu adeegaynaa sida ugu macquulsan waxaan haysanaa shaqaale tababaran oo xirfad leh sidoo kale dad delivery ah oo aad loo soo xulay akhlaaqdooda nadaafadooda tababarkooda waxyaalahaas oo dhan aan haysanaa waxaan is leeyahay baahidaas insha Allah macaamiisheena waan baraynaa waana dabooli doonaa insha Allah haddana waa daboolnay suuqaana waa cusub yahay hadda macaamiil badan haysanaa waxaan rajaynaynaa qofkaan ka mid ahayn inuu ka mid noqon doono oo mar alle markii uu arko adeegeena ama codkeena ama waxyaalahaas oo dhan marka waxaan leeyahay TV-gana aad aan ugu mahad celinaa maanta nagu soo booqday xafiiskeena barnaamijka ganacsiga uu nala wadaagaya asagana aad aan ugu mahad celinaynaa kalsooni aankay ku qabi karaan qofka kalsooni aankay ku qabi karaan maadaama qofka uusan dukaan inta tago wax ku bixinaynin aad u mahadsan tahay waxaan is leeyahay kalsoonida markaan ka hadlayno annaga macaamiilka shayga markuu naga soo dalbado shaygu wuxuu noqon karaa shay qaaliya shay raqiis oo noqon karaa waxaan is leeyahay kalsoonideena aad ayay u balaaran tahay qofkaas macaamiilka ah waxaan ugu adeegaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan mar alla markuu dalabka naga soo dalbado sida ugu dhaqsiyaha badan u geena haddii dalabkiisi la waayo lacagtiisa aan u celinaynaa waxaan anaga dad waxaan nahay businesskoodu fiican yahay deegaan la yaqaano degan bangiga weyn ee Salaam Somali bangi uu maalgeliyay marka waxaan is leenahay kalsoonideena anaga dad la yaqaanaan nahay oo waxa waaye businesskooda u shaqeynayo waxaan is leeyahay macaamiisha sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ugu jawaabi karno kalsoonidina aan waxaan rajeynayaa insha Allah waxa uu nagu soo laabtayna ma jiraan hadda kadib inaysan waxba nagu soo laaban oo macaamiilka sida ugu dhaqsiyaha badan aan u adeegno qofkii hal maalin naga adeegtane waxaan aaminsanahay inuu dad badan noo abuuri doono anaga waxa waaye kalsoonida hadda in lagu aamino waxa keenaya macaamiisha aan u adeegnay markii la wareysto iyo sidii ay yihiin waxaan is leeyahay waxa waaye kalsooni badan ay jirto annagana kalsooni badan aan isku qabnaa qofka asiga oo aan soo wicin lambarada gaaban oo aad TV-ga ka baahisay ma jiraa qaab kale oo sahlan oo qofku adeegyadii uu ka heli karo wuu ka heli karaa laba qaab oo kale oo sahlan uu heli karaa ama website-keena uu geli karaa faras.com halkaasuu adeegoo rabo ka fiirsan karaa una kasoo dalban karaa sidoo kale appka ayuu ama Play Store-ka ayuu wuxuu kala soo degi karaa application-ka Faras online kadibna meeshaas uu inta iska register gareeyo ayuu wuxuu kasoo dalban karaa adeega la adeego u baahan yahay sidoo kale waxaa jira barnaamij yar oo waqtiyo nasiib ah oo aan qabanaa maalinta Jimcada ah oo la yiraahdo Shake Challenges oo aan soo wadnay labadii bil ee la soo dhaafay oo abaalmarina iyo waxyaalo qaali aan ku bixinay oo macaamiil badan ay arintaas ay ka faa'iideysteen waxaan ka bixinay TV waxaan ka bixinay mobile qaali ah waxaan ka bixinay adeegyo kala duwan oo macaamiishii guuleysatay bil walbana waxa way xafladaas waa qabanaa maalin walba oo Jimcaha barnaamijkaas qabanaa qofka wuxuu sameeyaa kaliya adeegaas oo soo dalbanaa Shake Challenge bilkiisa waxana kadibna number u soo baxay numberkaas aan siinaa hadii uu noqdo guuleystaha maalinta ku xigto Sabtiga aan wacayna waxaan ugu bishaareynaa inuu guuleystay 4 isbuucba mar baan xaflad u qabanaa insha Allah waxaan rajeynayaa doonaa xafladaas inaad nagala soo qayb gali doontaan oo aad qayb ka noqon doontaan dadka baahinayo ugu dambeyntii waxaa jira ganacsiyo kale oo online wax lagu kala iibsado suuqyo kala duwan oo lagu kala iibsado dalkeena way ku yaala idinkana waxaa jira qayb muhiim u ah qaybta ugu muhiimsan oo bulshada in badan kasbatay wax yaabo qodobo ah noo sheegi kartaa ugu duwantiin si bulshadii u aragta waxyaabaha ugu muhiimsan oo bulshada u haysa annaga waxaan sameynaa waxyaalo badan oo ugu duwanahay waxa hadda lagu shaqeynayo waa technology waxaan haysanaa backup weyn oo xagga technology-ga ayaan haysanaa oo aan ugu duwanahay tiimamka kale oo competitor-keena ah sidoo kale annaga waxaan haysanaa maalgelin xoogan oo bangiga Salaam Somali bangi uu maalgeliyay waa dhalinyaro oo fikirkan iyo hal-abuurkan la imaaday oo maalgeliyay bangiga Salaam Somali bank sidoo kale waxaan haysanaa shaqaale u carbisan shaqadooda oo arrinkan tareerina iyo tababaro badan aan soo siinay sidoo kale waxaan haysanaa shaqaale tababaro dibadda lagu soo siiyay waxaan is leenahay rag badan oo dibadaha ka imaaday ayagana waa oo barnaamijkan aad u soo isticmaali jiray oo khabiiro aan ayagana waa nala joogaan marka waxaan is leeyahay competitor-keena waxyaalahan ku faani karno ugu weyn waa xagga teknolojiyada ayaan aad ugu sareynaa thank you bulshada waxaan ugu baaqayaa inay ka mid noqdaan macaamiisha suuqa Faras waa wehelkaada fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo macaamiisha Faras ka adeega suuqa Faras
adigoo gurigaada jooga ama goobtaada ganacsiga jooga si aan baahidaada u haqabtirno. madaxa iibgeynta suuqa Faras ayaa ka warbixiyay qeybaha kala duwan oo markaasi bulshooyinka ugu adeegaan suuqa Faras waa kan asiga oo ka hadlaya arintaasi. magacaygu waa Ibrahim Barre Cabdi ahna supervisorka saliska ee Faras online market. waxaan u shaqeynaa customerka ayaan u dhaxeynaa iyo supplierka. waxaan leenahay market wax ku iibiyo as online sida Amazon ama Alibaba oo kale. waa platform oo ay ku kala iibsadaan dadka wax raba iyo dadka wax haysta. waxaan u shaqeynaa oo aan ku shaqeynaa system. waxaan siinay customerada inay soo abuurtaan usero ayaga ay leeyihiin ay ku diiwaan gashaan Faras oo ay wax ku soo dalbanayaan online-ka. sida la mid ahna qolada supplierka oo alaabaha ayagoon haysana waxay leeyihiin user oo ayagana ay alaabaha ay haystaan ku soo gashan karaan backupkeena ama systemka aan ku shaqeyno. waxaas oo dhanna waxay ku baxaan system. qofka customerka ah wuxuu soo dalbanayaa gurigiisa isagoo joogo asoo xafiiskiisa joogo meel kasta oo ka mid ah magaalada Muqdisho asagoo jooga ayuu online-ka ka soo dalbanaa. marka uu soo dalbado sheyga uu rabo uu ka soo dalbanayaa isla markaas annaga waxaan sameynaa waxaan ugu soo dhacayo as system waan baxnaa waxaan u tagnaa qoladii alaabta laga soo dalbaday oo ah supplierkii alaabaha iibinayay. kadib alaabtii laga soo gadayaa laga soo qaadayaa waxaa loo geynayaa qoladii deliveryga qaadayso waxay u geynayaan customerkii loo geynaa. customerkii intaas oo dhanna waxay marayaan system laga bilaabo customerkii bilowgii dalabka xafiiskii supplierkii deliverygii kulli intaas oo dhan waxay marayaan system oo caadi ah oo qof kasta uu arkayo oo saddexda baarti oo qofku wax soo dalbaday iyo xafiiskii Faras iyo supplieradii alaabaha lahaa ay kulli wada arkayaan. annaga waxaan la midnahay sida dukaanka ninka markuu gurigiisa ka soo baxo uu imaado dukaanka lacagtu ku gadan lahaa ayaa annaga asoo gurigiisa jooga ka siinaa. kaliya waxaan ka qaadnaa service yar oo aan micno lahayn oo markii loo xisaabiyo safarka loo galayo aan u dhigmin oo $1 ah loo geynayo gurigiisa. for example ninkan joogahay Daarusalaam ama suuqa xoolaha ama Madiino meesha dheer ugu dheer magaalada hadda waa intaas. markuu ka soo baxo uu yimaado banaadir uu ka dalbado biza ama alaab kale uu ka soo doonto jidka Maka al-Mukarrama intee bajaaj uu soo mari karaa intee haddii gaari uu wato dhib soo mari karaa wax yar maaha. annaga intaas oo dhan annaga ka kaafino dalabaadkii asoo gurigiisa joogo uu ka soo sameeyay dukaanku ka gatay yaan kaga soo qaadaynaa gurigiisa loo geynaa ayadoo laga qaadaya $1. barayskiina same price dukaanka uu yaqaanay isla lacagtii uu ku yaqaanay iyo wax loo gadaya. annaga system aan ku shaqeynaa systemkaas ayaa kala saarayo. qofkan markuu wax soo dalbanayo wuxuu wax ka soo dalbadaa sawir meel yaalo. sawirka meesha yaalo markuu click siiyo annaga automatically waxaa noo sheegaya systemkeena cidda leh sawirkaas cidda leh baan u tageynaa isla same cidda laheedna waxaa u dhacaya in dalab laga soo sameeyo nin customerkaas hebel la dhahayo dalab ka soo sameeyay saasan dalabka ku ogaanaa cidda leh alaabta ku ogaanaa. guud ahaan halkaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii ganacsiga oo toddobaadkiiba mar quraad ka daawataan TV-ga SDN TV. inta aan barnaamijkan mid ka xig kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.